Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada. Waxaan rabaa muuqaalkan inaan idinkugu sharxo qaabka Facebook lacag looga sameeyo adigoona wax muuqaala duubin oo aadan wejigaada soo bandhigin oo kamera hor fadhiisan oo juhdi aad u fara badan aadan iska bixin. Haddaba muuqaalkan ayaa step by step idinkugu tusi doona. Haddaba muuqaalkan si degan u daawo. Qayb kasta oo ka mid ah muuqaalkan waa ku muhiim si aad u fahanto steps-ka aan maraa. Haddaba waxaan rabaa in aan tuso si ay idinkugu noqoto tusaale lacagii aan ka sameeyay Facebook. Haddii aan soo furo Gmail-ka oo aan ku qoro Facebook si aan u arko lacagii ugu dambeeyay oo uu soo diro oo aan ku dhufto mid ka mid ah. Tani waa mid ka mid ah oo uu soo diray bishii July 2024. Hoos bay ku sii qoran tahay. Waa $335 $335 oo aadan wax juhdiya aadan gelin. Sidoo kale haddii aan markale ku laabto oo aan ku qoro Facebook si aan u arko lacagii ka sii dambeeyay oo aan ku dhufto bishii ka sii hoosisay tanna waa sidoo kale waa €71 waa $71. Haddaba waxay ku xiran tahay Facebook dakhliga aad ka sameynayso muuqaalada aad soo gelisay iyo sida loo daawado. Haddii aad joogtayso oo si maalinle ah muuqaalada aad u soo geliso waxaan hubaa inaan kumanaan iyo ka badan baad ka sameyn karto. Haddaba muuqaalkeenu si uu noqoyo mid la fahmi karo step by step ah. Waxaan rabaa su'aasha ah inaan isweydiino. Haddaba sidee Facebook lacag looga sameeyaa? Maxaad u baahan tahay inaad Facebook lacag ka sameyso marka ugu horreeyo? Kow waxaa u baahan tahay inaad sameysato Facebook page. Si aad Facebook page u samaysatid waxaad soo furataa Facebook-gaaga. Sidaa Facebook page u samaysatid waxaad ku dhufataa meeshaan aan ku calaamadeeyay. Kabacdina waxaad ku sii dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay create new profile or page. Kabacdi waxaa ku soo baxaya page-kan. Kabacdi waxaa ka sii doorataa qaybta ay ku sii qoran tahay public page. Kabacdi waxaa ku dhufataa next. Halkan waxaad ku qoraysaa page-kaaga magaciisa. Tusaale ahaan waxaa ku qoraynaa Weheliya Media. Kadibna waxaad ku dhufataa next. Halkan waxaad ku qoraysaa page-kaaga waxyaabaha aad u baahan tahay inaad uga hadashid. Meeshan waa aad u muhiim u tahay si aad Facebook lacag ugu sameysid waa inaad yeelataa wax aad ka hadasho. Haddii aad ka hadlayso siyaasadda waxaad ku qoraysaa waxyaabo la xiriiro siyaasadda. Haddii aad rabtid inaad ka hadashid waxyaabo la xiriiro health-ga waxaad ku qoraysaa oo caafimaadka la xiriiro inaad health waxyaabo la xiriira ku qorato. Waxay ka saacidaysaa meeshaanu inuu Facebook ku aqoonsado waxyaabo aad ka hadlayso inta badan dadka waxyaabahaas jecel oo u bandhigo muuqaaladaada. Laakiin ma fiicno in maalin walba waxyaabo kala duwan aad soo bandhigto. Tusaale ahaan waxaan iska dooranayaa mid ka mid ah kuwa meeshan ku jiro. Kadibna waxaad leedahay create page. Meeshan waxaa ku qoraysaa details-ka iyo faahfaahinta la xiriirto page-kaaga. Haddii uu page-kaaga mataqaanaa website leeyahay, waa website leedahay, email-kaaga sidoo kaleeto. Halkan telefoonkaada ayaa ku qoraysaa. Qaybta ugu koreyso aan ka soo gudubnay waa general-ka ah waxaad ku qoraysaa wax yar oo la xiriiro waxyaabaha page-kaaga quseeyo. Oo waxaad ku qoraysaa tusaale ahaan oo kaleeto Weheliya Media wuxuu ka hadlaa waxyaabahaas iyo waxyaabahaas oo kale tusaale ahaan page-kaaga magaciisa. Halkan waxaa ku qoraysaa page location-ka. Muhiim ahaan gebigood waa iska wada dhaafi kartaa. Laakiin way qurxinaysaa page-kaaga. Okay, next iska leenahay. Halkaana waxaad soo gelinaysaa sawirka aad saaranaysid page-kaaga. Qaybtiisa cover-ka iyo qaybtiisa horeba labadaba waa soo upload gareynaysaa adigoo mid kasta ku dhufanayo. Next aad leedahay. Haddaba markii halkan ku soo baxdo waxaa sameysaa invite friend leh. Kadibna ku dhufo select all. Kadibna waxaad dhahdaa send invite. Taas waxay ka saacidaysaa in page-kaaga isla markiiba la soo follow gareeyo oo dadka friends-ka profile-kaaga ku jiro oo friends-ka kula ah inay page-kaaga isla markiiba soo follow gareeyaan. Kadibna next dheh. Kadibna waxaa sameysaa done. Haddii aan ku dhufano page-ka waxaan arkaynaa page-ku inuu noo sameysan yahay. Laakiin page-ku waxaa nooga muuqdo inuusan ahayn page dhammaystiran. Oo hadda markaan saan u soo galno page-ka waxaa nooga muuqdo page-ku inuu calaamadan inaysan dhammaystirnayn oo page-ku wali half u yahay. Haddaba sida page-kaaga u dhammaystirto oo page-kaaga uu noqdo mid professional ah waa inaad martaa steps-kan.
ugu horeyn waxaa samaynaysaa inaad looga soo gashato qaybta gadaalana cover page aad soo ka samaysato. Haddaba sidaa u samaysto loogo uma baahnid inaad waqti badan iska bixisid. Waxaan ku tusayaa qaab aad iyo aad u fudud oo aad loogo ku samaysan karto. Haddaba sida loogo u samaysato waxaad ku dhufataa Chrome-ka ama browser-ka kugu jiro markaa. Kadibna waxaad ku qortaa qaybta search-ga Graffiti Write ku qor. Kadib search leh. Kadib hoos u bax waxaad ku dhufataa qaybta Graffiti Write ka hooseyso oo login ah. Okay. Haddaba si aad page-kan u isticmaashid waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaa qaybtan ku dhufatid kadibna aad desktop site aad doorato. Okay. waxaa kuu soo baxayo shaashadan kadibna waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay create an account. Haddii laakiin account aad hore ugu lahayd halkan ayaa emailkaaga iyo passwordkaaga gelinaysaa. Okay, kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybtan create account. Kadib halkan waxaad ku qoraysaa magacaaga, tusaale ahaan Weheliye. Halkan waxaad ku qoraysaa emailkaaga, halkan waxaad ku qoraysaa passwordkaaga. Kadibna waxaad leedahay create account. Haddaba waxaa kuu soo baxayo shaashadan kadibna waxaad samaysaa inaad qaybta midig u wado ilaa aad ka aragto image. Qaybtan image prompt ay ku qoran tahay ku dhufo. Kadib waxaa kuu soo baxayo ilaa 5 qaybood. Kadib waxaad ka sii doorataa qaybta ay ku qoran tahay logo design. Logo design ideas mid ay ku qoran tahay ku dhufo. Kadib waxaad samaysaa inaad halkan ku qorto magaca page-kaaga. Tusaale waxaan qoraynaa Weheliye Media. Kadib halkan waxaad ku qoraysaa page-kaaga muxuu ku hadlaa. Category-ga aad dooratay ayaa halkan ku qoraysaa. Tusaale waxaan doortay health and beauty. Kadib waxaad leedahay create content. Kadib wuxuu kuu qorayaa qaybo kala duwan oo qoraal ah. Haddaba waxaad qaadanaysaa mid ka mid ah kuwii ku anfaco. Haysiinba ku soo saaray iska celi. Wuxuu kuu qorayaa qaybo kala duwan oo qoraal ah. Haddaba waxaad qaadanaysaa mid ka mid ah kuwii ku anfaco. Tusaale ahaan waxaan dooranaynaa number 4. Kadib copy ayaa leedahay. Qoraalkaas ilaa number 5 laga gaarayo ayaa copy leedahay. Kadib waxaa furanaysaa page cusub. Kadib waxaad qoraysaa ideogram. Waxyaabahaas oo dhan waxaa idin dhigayaa qaybta description-ka si idinkugu fududaato. Okay, ideogram page kugu horeeya ayaa ku soo dhufanaysaa. Kadib waxaa kuu soo baxayo shaashadan. Kadib continue with Google leh oo iska sign gareey, sign in deh. Kadib qaybta Google-ka markaa ku dhufato wax yar sug. Kadib waxaad dooranaysaa emailada midka aad rabto. Hadduu hal email ku kacsan yahay hal email ku soo bixi doono emailada mid ka mid ah dooro. Kadib waxaad ku dhufanaysaa mid ka mid ah. Okay, haddaba markay shaashadan kuu soo baxdo waxaad ku dhufanaysaa qaybta hoose ee plus-ka ah. Kadibna halkan ayaa waxaad ku paste garaynaysaa qoraalkii aad soo qaadatay. Kadib waxaad dooranaysaa qaybtan oo ratio-ga ah. Waxaad ka dooranaysaa 1:1 kadibna waxaad leedahay generate. Qaybtaas kore generate ayaa ku qoraysaa. Kadib my image isku dhufo. Kadibna waxaad sugtaa wax yar ilaa ay loogada kuu soo baxayso. Okay, waxaa noo soo baxay ilaa 4 logo. Mid kasta way qurux badan tahay. Haddaba midii ku qanciso ayaa dooranaysaa adigu. Aniga waxaan dooranayaa tusaale ahaan midaan afraad. Waa download garaynaysaa markaa. Okay, download deh. Kadibna waxaad imaanaysaa page-kaaga. Loogadu aad bay u fududahay. Waqti badan ka bixi mayso. Sidaas haddaba u samaysto loogada. Okay, waxaad imaataa page-kaagi. Kadibna qaybtan waxaa ku dhufataa profile picture-ka ah. Kadibna waxaad dhahdaa choose profile photo. Kadibna access deh. Hello. Kadibna waxaad soo doorataa loogadii aad soo degsatay. Okay, looga aad iyo aad u qurux badan ayaanu soo saaranay.
ayadoona waqti badan uusan naga gelin. Sidoo kale qaybtan cover page-ka ayadana sidoo kale waa soo upload garaynaysaa. Haddii aad sii design garayso oo aad sii qurxiso aad bay ugu sii fiican tahay. Laakiin haddii aadan rabin inaad waqti ku bixiso logo, sidan ayaa u samaysan kartaa. Logadana waa logo kuu qaas ah oo aan cid kale aysan samaysan. Waana mid adiga kuu qaas ah. Okay, refresh dheh. Haddaba waa kaa page-kan waxaa waaye logada qaybta gadaala iyo qaybta hore labadaba noo saaran tahay. Kadib waxaad samaynaysaa inaad qaybtan add button-ka ah, add an action button meeshay ku qoran tahay inaad ku dhufato. Meeshan waxay kaa saacidaysaa qofta markay soo gasho profile page-kaaga inay kula soo xiriiri karto. Waxaad dooranaysaa midkii aad u baahan tahay. Kadibna waxaad leedahay next. Waxaa hadda tigta saaray aniga message-ka inay qofta message ii soo diri karto. Kadibna automatic isku saarayo messenger-ka. Save ayaa leedahay. Okay, page-kan wuxuu noqday good. Haddaba saa u dhamaystirto oo u gaarsiiso excellent meesha good ay ku qoran tahay. Waxyaabahan kaleeto ayaa si dhamaystiri kartaa. Waxaad ku dhufanaysaa qaybtan CMOK ah. Kadibna waxyaabahan ayaa dhamaystiraysaa. Ma raba inaad waqti badan ku soo bixiyo midkii aad adigu is leedahay wuu kugu habboon yahay ku soo darso. Waxaan rabaa marka maadaama page-kaynu uu hadda noo abuuran yahay wax kastana ay u dhamaystiran yihiin sidee muuqaalada ku heli kartaa. Maadaama page-kaaga category gooni ah u dooratay oo waxyaabo gooni ah u baahantay inaad ka hadasho waxaad YouTube-ka ka baaraysaa waxyaabaha la xiriira mawduuca aad dooratay. Tusaale ahaan haddii aad dooratay inaad ka hadasho fitness-ka amaba sida mataqaanaa cuntooyinka la iskaga saxo. Haddii aad dooratay waxyaabo la xiriira mataqaanaa waxa waaye siyaasadda waa inaad YouTube-ka ka baartaa waxyaabaha la xiriiro ciwaanka aad dooratay. Maadaama aan page-ka u doortay waxyaabo la xiriiro health and beauty waxaan YouTube-ka ka baarayaa waxyaabo la xiriira caafimaadka. Tusaale ahaan wax walba oo caafimaadka la xiriiro waa inaan page-kayga soo geliyaa. Waxaan imaanaynaa YouTube-ka kadibna waxaan ku qoraa caafimaadka. Maadaama page-kayga aan u doortay caafimaadka waxaan soo gelinaa waxyaabo la xiriira caafimaadka. Marka ilaa kumanaan muuqaal ayaa ku jiraan. Adigu hadba muuqaalkii ku xiiso geliyo oo aad leedahay daawasho badan ayuu helaa ayaa soo qaadanaysaa. Waxaan soo qaadanayaa muuqaalkan la xiriira socodka. Okay, kadib waxaan sameynayaa inaan ku dhufto muuqaalka. Si aad muuqaalka ula degto waxaad samaynaysaa si aad u fudud. Kadib waxaad leedahay qaybtan share ayaa ku dhufanaysaa. Kadib copy link ayaa leedahay. Waxaad imaanaysaa qaybta Chrome-ka ama browser-ka markaa kugu jiro. Kadib waxaad ku qoraysaa save from net qaybta search-ga. Kadib website-kan ayaa ku soo baxaya. Linkiga aad soo qaadatay meeshan ku bista gare. Kadib falaarta ku dhufo. Waxay sug ilaa uu muuqaalka kugu soo baxayo. Kadib download dheh marka. waa kaa muuqaalka halkaas ku diga markuu muuqaalka noo digo socodkana waxa waaye dadkii hore wax ay ka jeclaayeen markuu muuqaalka noo digo ayaan soo laabanaynaa daba muuqaalku noo soo digay waxaan isticmaalaynaa mid ka mid ah labadan app labada wax lagu edit kareeyaa waa InShot iyo CapCut midka aad taqaano ayaa isticmaali kartaa laakiin haddii aad fudeed rabto oo aad si fudud inaad wax u edit kareyso aad rabto waxaad isticmaali kartaa InShot haddii aadan CapCut aqooninba waxaan isticmaalaynaa InShot si aan muuqaalka ugu edit kareyno waxaad ku dhufataa InShot haddii aadan haysana Play Store-ka kala soo degaysaa waxaad ku dhufanaysaa marka InShot soo furto shaashadana ku soo baxayso kadibna waxaad ku dhufataa qaybta video-ga kadib plus dheh oo qaybta new-ga ku dhufo kadibna soo upload garee muuqaalka aad soo dejiso okay haddaba muuqaalka waan soo gelinay sababta aan sidan u sameynayna waxay tahay inaan muuqaalka aad u muuqato mid adigu leh oo kale haddii laakiin aad muuqaalka YouTube in ka soo qaadatid oo adoo edit gareynin aad Facebook page-kaada hore ka soo gelisid muuqaalkaas wuxuu u muuqanaa mid aan original ahayn sababtoo ah muuqaalkan cid kale ayaa creator ka ah oo hore u sameysay marka waxaan algorithm waaye uu ogaanaa muuqaalka inaad YouTube ka soo qaadatay oo aad Facebook page-ka hore ka soo gelisay marka sidaa ugu muuqato qof adigu muuqaalka sameeyay oo soo edit gareeyay waa inaad wax ka beddeshaa waa inaad size-ka ka beddeshaa waa inaad frame-ka ka beddeshaa mararka qaar waa inaad xataa codka waxyaabaha qaar aad ka beddeshaa waxyaabahaas oo dhan waxay kaa saacidayaan inaad muuqaalkaas mid adigu sameeyay oo creator ah aad noqotid marka ugu horreyn waxaad samaynaysaa inaad calaamadda InShot-ka ah oo loogada ah inaad iska saartid si aad iskaga saarto waxaad samaynaysaa slash-ka meeshan oo qaladka ah xayeysiin yar ah soo gelayso kadibna mataqaana muuqaalka edit gareynaynaa marka iska saartid loogada ugu horreyn waxaan ka bedelaynaa muuqaalka size-ka oo muuqaalka original size-ka sidaan ayuu ahaa oo sida YouTube-ka sidaan weeyaan
marka waxaad samaynaysaa inaad ku dhufatid qaybtan canvas ay ku qoran tahay oo aad dooratid qaybtan one to one oo Instagramka calaamadiisa ku sawiran tahay. Okay, sidoo kaleeto waxaad u soo bixaysaa dhanka midig, waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ayadana crop ay ku qoran tahay. Sidoo kale waxaad dooranaysaa one to one. Muuqaalku sidan ayuu noqonayaa. socodkan waxa waaye dadkii hore wax ay ka jeclaayeen male Marka maadaama aad soo yareysay size-ka muuqaalka, sidoo kale waxaa wax ka bedelaysaa qaybo ka mid ah oo muuqaalka waa dhegeysanaysaa, qaybaha muhiimka ah marmar soo hormarinaysaa si uu soo jiidasho u yeesho. Mararka qaar muuqaalka hadduu aad u dheer yahay, qaybo ayaa ka jaraysaa. Sidoo kale waxaan ka bedelaynaa frame-ka. Si aad frame ugu soo darato waxaad samaysaa, waxaad soo furataa appkan. Appkan waxaa lagu magacaabaa Pixel Lab. Hadduu kugu jiro waxaa kala soo degtaa Google Play-ga. Ku dhufo kadibna wax yar sug. Waxaad iska dilaydaa qoraalkan. Kadib waxaad samaysaa, waxaad ku dhufataa qaybtan. Waxaad ka sii doorataa transparent si aad background la'aan ugu dhigtid. Kadib waxaad samaysaa, waxaad ku soo laabataa qaybta dhexe. Kadib waxaad ku sii dhufataa qaybtan lagu magacaabo shapes. Kadib waxaa la sintaa shaashadda. Okay, kadib waxaad samaysaa hoos u bax. Qaybtan ay ku qoran tahay opacity 0G. Okay, hoos u sii bax. Kadib stroke width waxaa keentaa lambar 4. waa ka badin kartaa lambar 4 laakiin waa sida caadiga ah. Okay, kor u soo bax mar kale. Kor u soo bax kadib waxaad samaysaa qaybtan radius ku qoran tahay waxaa keentaa lambar 3 ayadana. Okay, tick star wax yar waxaa la sintaa shaashadda. Okay, sidaa waa. Kadib waxaad samaysaa, waxaa u soo baxdaa dhanka midig. Qaybtan color ay ku qoran tahay ku dhufo. Kadibna enable leh. Halkan waxaa ka dooran kartaa kalarada aad u baahan tahay. Mar walba waxay ku xiran tahay muuqaalkaada background-giisa. Hadda waxaan iska dooranaynaa redkaas. Okay, kadibna waxaad samaysaa save leh. Save as image. Kadibna save to gallery. Kadib waxaad samaysaa saa ugu soo darto frame-ka. Waxaa ku dhufataa qaybtan lagu magacaabo bib. Kadib waxaa ku sii dhufataa qaybta footada. Kadibna sawirka soo dooro. Okay, kadib waxaad samaysaa, waxaa la sintaa shaashadda. Okay, waxaa la sii sintaa muuqaalka mar kale. Waxaa ku dhufataa qaybtan bibta ah. Kadib muuqaalka la sin sawirka. Okay, kadib tick star. Muuqaalka sidaas ayuu kugu diyaarsan yahay. Waxyaabo fara badan oo kale waa kasii bedeli kartaa si inaad muuqaalka qaybo ka jarjartid, inaad qaybo ku soo kordhisid, inaad qoraallo ku soo dartid iyo waxyaabo fara badan oo kale. Kadib waxaa ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay filter. Waxaa ku sii dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay adjust. Waxaa samaysaa qaybtan light-ku ay ku qoran tahay waxaa keentaa lambar 6. Sidoo kale qaybtan kale waxaa keentaa lambar 5. Sidoo kale qaybtan waxaa keentaa ayadana 5. Qaybtan kalena 5. Okay, qaybtan kale waxaa keentaa sidoo kale. Waxaad imaataa qaybtan ay ku qoran tahay highlight lambar 5 ayadana keen. Sidoo kale qaybtan shadow ay ku qoran tahay mainstream ayaa geynaya. Okay, hore u soo bax mar kale waxaa keentaa qaybtan sharpen ay ku qoran tahay 100%. Tick star markaa. Muuqaalku wuxuu noqonayaa mid iftiin leh, mid hadduu shucaac yar kaaga jiray, mid wuxuu noqonayaa asigan aad u wanaagsan marka aad saas samayso. Kadib muuqaalka markaa wax walba u dhamaystirto, waxaad samaynaysaa export. Kadibna export yaa leedahay si aad u save garayso. Marka maadaama aad tusaale leh ka rabo waxaan samaynaa inaan wax yar ka qaato oo kaliya. Ilaa waxaan ka qaadanayaa intaan. Okay, intaan waa iska delete garaynaa. Kadib waxaan samaynaa export. Okay, haddaba sida muuqaalka page-kaada u soo geliso, waxaad samaysaa inaad page-kaada soo furato, kadibna aad ku sii dhufato qaybtan. Kadibna aad ka soo doorato muuqaalka gallery-gaada. Kadib next dheh. Halkan waxaa ku qortaa waxyaabaha uu ka hadlayo muuqaalkaaga. Tusaale ahaan oo kale caafimaadka socodka. Kadib marka aad dhamayso, waxaa ku dhufataa qaybta next. Qaybtan koreeto ku sii dhufo add title meesha ku qoran tahay. Kadibna waxaa ku sii dhufataa, waxaa ku sii qortaa title u sameeyo muuqaalkaaga. Caafimaadka tusaale ahaan. Intaas marka aad ku dhufato, waxyaabahan waxba ha ka bedelin. Share now ku dhufo kadibna. Okay, haddaba muuqaalka waa la upload garaynaa.
haddaba sidaas ayaa loo soo geliyaa muuqaalka. Haddii aad sidaas u joogtayso oo sidaas muuqaalada aad YouTube ku soo qaadato, sidaasna aad maalin walba u soo geliso amaba isbuucii 2 mar, isbuucii 3 mar, hadba inta awooddo, waxaan hubaa inaad muddo gaaban aad ku bixi doonto shuruudaha lacag samaynta. Haddaba waa maxay shuruudaha lacag samaynta Facebook? Waxaad imaataa sidaad u eegtid qaybtan profile-kaaga, kadib hoos u sii bax, waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay Creator Support. Waxaad ku sii dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay Monetization. Kadib waxaad ku sii dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay Monetization Eligibility. Okay, haddaba waxaa kuu muuqdo ilaa 5 qaybood oo Facebook lacag looga samayn karo. Midda koowaad waxaa la lahaa stars. Dadka muuqaaladaada daawado inay ku support gareeyaan oo stars ay ku diraan oo lacag caadi ay ku diraan. Tan labaadna waxaa la lahaa ads on reels la yiraahdaa. Waa muuqaalada gaagaaban xayisiinta la dul saaro. Ayadana arki doonaa qaybta kale waxaa la bonus, taas waa invite only. Inta badan Facebook asaa kuga casuuma. Tan saddexaadna, tan afraad waxaa la lahaa in stream ads. Waa midaan u soconno oo u baahannahay inaan wax badan ka ogaan. Haddaba ku dhufo ayada si aad u ogaato shuruudaha lagaga baahan yahay. Tan waxaa weeyaan muuqaaladaada 3 daqiiqo ah in xayisiin la dul saaro. Waa ilaa 5 qaybood lagaga baahan yahay. Shuruudaha lagaga baahan waa 5 qaybood, laakiin 3 ayaa ugu muhiimsan. Waliba 2 aan dhaho, 2 ayaa ugu muhiimsan. Midda koowaad waxaa waaye inaad haysato 5,000 oo followers. Midda labaadna waxaa waaye inaad haysato 60 beri oo 60 beri oo ugu dambeeyay inay muuqaaladaada ay daawadeen 60,000 oo qof. Labadaas shuruud haddaad buuxiso, labadan kaleeto oo ah in eligibility country iyo content monetization policy, labadaas ayaguna tick bay saarmi doonaan. Labadaas hore waxaa waaye in aad degan tahay waddan loo ogol yahay Facebook inuu lacag ka sameeyo. Taas muuqaalka dhammaadkiisa ayaan uga hadli doonaa. Tan kaleetana waxaa waaye muuqaaladaadu inay raaceen policy-gu u yaalay Facebook. Haddii aad marto waddadii aan marnay, muuqaaladaadu waxay noqonayaan kuwa monetization policy raacay. Markii aad buuxiso shuruudahan, waxaad dalbanaysaa stream ads oo ah in muuqaaladaada xayisiin la dul saaro. Haddaba Soomaaliya ma ka mid tahay waddamada uu Facebook u ogol yahay inay lacag ka sameeyaan? Haddii aan eegno oo aan soo furno Chrome-ka, kadibna halkan aan ku qorno Facebook eligibility country, linka ugu horeeya aan ku dhufano, kadibna aan qaybtan ku sii dhufano stream ads are available in these countries. Ilaa halkan waxaan ka arkaynaa inaysan Soomaaliya ka mid ahayn. Haddaba sidee ugu gudbi kartaa caqabaddan? Caqabaddan waxaa ugu gudbi kartaa oo mid aad u fudud ah. Waxaa samaynaysaa inaad Facebook page-kaada u samayso admins kala duwan. Tusaale ahaan, inaad Facebook-kaada admin uga dhigto qof joogo Kenya haddii adigu Soomaaliya joogto. Sidoo kaleetana admin kale aad ka dhigto qof Turki joogo tusaale ahaan oo kaleeto. Dad kala duwan inaad admin ka dhigto, kadibna muuqaalada aad soo geliso. Facebook wuxuu u aqoonsanaa dadka page-kan maamulo inay waddamo badan kala joogaan. Sidaa daraaddeed, adiga oo Soomaaliya joogo kuguma qabsanayo. Marka waxaa samayn kartaa markii aad shuruudahan buuxiso inaad Facebook-kaaga admins kala duwan u samayso, qaar joogo Yurub ama qaar joogo America ama qaar Afrika joogo, waddamada loo ogol yahay inay xayisiinta lacagta ka sameeyaan ka dhigo admins. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan waxyaabo badan ka faa'iideen. Intaas ayaa kusoo gabagabeynaa. Sidoo kale waxaa kusoo biirteen Telegram-ka, linkiga waxaa inii dhigaa commentiga ugu horeeya. Description-kan sidoo kale waa inii dhigaa. Website-yada kala duwanaa aan isticmaalana sidoo kale waxaan inii dhigi doonaa description-ka.